taariikhda Soomaalida Ethiopia shakhsiga kaliya ee fahmay siyaasadda Ethiopia la falgalay la halgamay kaligiisna la dagaalamay waxaynu ku tilmaami karnaa aabaha dawladnimada deegaanka Soomaalida waxaynu ka warramaynaa taariikh nololeedka shakhsi ku suntan baalasha dahabka ee asaaskii dawladnimada deegaanka Soomaalida shakhsi naftiisa dhaqaalihiisa wax kasto haystay u horay jiritaanka dawlad deegaan ay Soomaalidu leedahay oo qab iyo saameyn ku yeesha dalweynahan kulminaya qoomiyadaha kala diimaha afafka iyo isirka ah iyo midkood shakhsiyaadka Soomaalida farakutiriska ah ee ku xardhan taariikhda Ethiopia sidoo kalena ay naadir tahay in laga helo Soomaalida shakhsi dabadii iyo hortii toona saameyntiisa oo kala ku yeeshay Ethiopia taariikh nololeedka ambassador Majiid Xuseen aynu ka warramaynaa anigu waa Axmed Awga halkanina waa JTN ee soo dhawaada jaalayaal inta aynaan u galin muuqaalkan fadlan like inoo saar subscribe na dheh channelkan YouTube wax weyn ay inooga dhigan tahay Dr. Majiid Xuseen waxa uu ku dhashay 1943 magaalada Dirdhaba waxbarashadiisa asaasiga ahayd ilaa iyo dugsi sare waxa uu ku qaatay Dirdhaba waxa uu galay jaamacadda Addis Ababa kadib waxa uu waxbarasho u tagay dalka Ingiriiska lixdamiyadii xilligu ku jiray jaamacadda oo ay talineysay boqortooyadii macaanka ahayd ee dhargi doctorku waxa uu gudmixeen ka noqday ururka ardayda jaamacadda oo u dhaqaaqayay madax banaanida qoomiyadaha aan amxarada ahayn markii uu jaamacadda ka baxay haddana waxa uu ku biiray ururka aqoonyahan ka soo jeeday qoomiyadaha aan amxarada ahayn oo u dhaqaaqayay in ay qoomiyadaha Ethiopia u sinaadaan talada dalka cadaadiskana laga qaado qoomiyadaha aan amxarada ahayn oo ay boqortooyadu ku haysay cagta hoosteeda aqoonyahankaas isu urursaday ayaana si baan loo gumaaday intooda badan la xasuuqay nasiib wanaagse Majiid Xuseen waxa uu firxaday halgankan ka sii waday dalka Suudaan isagoo noqday madax xafiiska UNHCR ee Suudaan wax yar kadibna waxa loo bedelay xafiiska UNHCR ee Pakistan halkaas ayuu ka shaqeynayay ilaa ay dhacday dargidii uratayna dawladii EPRDF kolka EPRDF uratay waxa ururkaasi ku midoobay qoomiyadaha Tigray Amharo Oromo iyo shucuubta koonfureed xilligaas waxa deegaanka Soomaalida ka samaysmay 15 urur siyaasadeed oo kala duwan Dr. Majiid Xuseen waxa ku guuleystay inuu mideeyo 14 urur siyaasadeed isuguna geeyo hal urur oo la yiraahdo Lego Ethiopian Somali Democratic League gudoomiyaha xisbigaas ayuu noqday doctorku ururka shantoonaad ee gooni isku taagay ee aan ku biirin ururada isku tagay waxa uu ahaa ONLF ma aaminaysa ilaa iyo maanta habkaas ay loo qaybsaday xilalka dawladda deegaanka Soomaalida tusaale haddii uu madaxweyne noqdo ONLF waxa qasab ah in ku xigeenka madaxweynaha iyo afayeenka baarlamaanku ay noqdaan Lego Majiid Xuseen waxa uu ka mid noqday guddiga sameeyay dastuurka Ethiopia waana shakhsiga dastuur ku daray qodob gooni isku taagid qoomiyadaha ka hadlaya ee 39aad doorashadii ugu horeysay ee baarlamaanka Ethiopia ka qabsoonta waxay qabsoontay 1996 Majiid Xuseen waxa uu noqday xildhibaan ku soo baxay codadkii ugu badnaa guud ahaan dalka Ethiopia isagoo ka soo baxay degmooyinka Baabili Xarshin Qabri Bayax iyo Fayambiro waxa uu helay codad gaaraya 150,000 oo cod halka wasaarihii xilligaasi Emel Zanaawi uu ku soo baxay 27,000 oo cod oo kaliya xilliyadaas waxa uu qabtay jogooyin ay ku jiraan wasiirka dhaqaalaha iyo xidhiidhka caalamiga ah iyo wasiirka ganacsiga iyo isgaarsiinta Ethiopia isla sanadka 1996 ay koox dabli hubaysani Majiid Xuseen ku rasaasayeen magaalada Addis Ababa xilli uu sii galay wasaaradda ganacsiga waxaana ku dhacay 6 xabadood dhaawaciisana waxa loo caaray oo lagu soo daweeyay Israa'iil 1998 Majiid Xuseen waxa uu noqday ku xigeenka madaxa guud ee UNICEF ee xarunta Geneva wax yar kadibna waxa uu noqday wakiilka qaramada midoobay u fadhiya Ethiopia ahaana xubin ka tirsan golaha wasiirada Ethiopia tan oo ka dhigan miisaanka culus iyo saameynta adag ee uu ku lahaa Majiid Xuseen siyaasadda Ethiopia ugu dambayna sanadkii 2004 ayuu doctor ku geeriyooday isbitaal ku yaal New York waxaana midkiisa laga soo dejiyay Addis Ababa isagoo lagu aasay magaalada Dirdhaba ee uu ku dhashay nasiib darro inkastoo magaciisa lagu qoray kulliyado iyo dugsiyo ku yaala DDS haddana ma jirto wax kale oo maamuus ah oo ay doctorkan u sameeyeen dawladihii soo maray deegaanka Soomaalidu iyo dawladda xilligan ka arrimisaaba sidoo kale halkan ayna ka dhalanaysaa su'aasha ah kolka aynu aqoonsan weyno maamuusi weyno ee aan libinta u ogolaan weyno kuna ixtiraami weyno xilliyadeena Majiid oo kala ah sidee aynu ku rabnaa inaynu noqono ummad taariikh leh fadlan aragtidaada commentiga noogu reeb mahadsanid